marka laga hadlayo Afrika dad badan waxay maskaxda ku hayaan saboolnimo iyo caqabado horumarineed laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay qaaradda ku yaalaan caasimado casri ah oo lagu tilmaamo meelaha ugu wanaagsan ee lagu noolaado magaalooyinkan waxay ku tartamayaan amniga nadaafadda dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo soo jiidashada maalgashadayaasha haddaba waa kuwa shanta caasimadood ee Afrika ugu nolosha wanaagsan maxaase ka dhigay kuwa ka duwan caasimadaha kale ee qaaradda kaalinta shanaad ee caasimadda ugu nolosha wanaagsan Afrika waxaa ku jirta Rabat oo ah caasimadda Morocco magaaladan waxaa ku nool qiyaastii 600 oo kun oo qof halka guud ahaan deegaanka magaalada ku hareeraysan ay ku nool yihiin in ka badan 1,800,000 oo kun oo qof Rabat waxaa lagu yaqaanaa wadooyin casri ah gaadiid tayo leh isbitaallo horumarsan iyo amni wanaagsan sanadihii u dambeeyay waxaa si weyn u kordhiyay maalgashiga gudaha iyo kan dibadda taasoo kor u qaaday tayada nolosha Morocco waxaa sidoo kale wadaa qorshayaal horumarineed oo higsanaya in magaalooyinkeedu noqdaan kuwa ka mid ah kuwa ugu casrisan Afrika marka la gaaro sanadka 2050 kaalinta afraad ee caasimadaha ugu nolosha wanaagsan Afrika waxaa ku jirta Windhoek oo ah caasimadda Namibia waxaa ku nool qiyaastii 490,000 oo qof Windhoek waa magaalo caan ku ah nadaafadda xasiloonida iyo tayada adeegyada bulshada inkastoo Namibia ay tahay dalalka ugu dadka yar Afrika haddana waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee leh dhaqaalaha wanaagsan magaaladan waxaa si joogto ah loogu maalgeliyaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada casriga ah si ay ula jaan qaado kobaca mustaqbalka kaalinta saddexaad ee caasimadaha ugu nolosha wanaagsan Afrika waxaa ku jirta Kigali oo ah caasimadda Rwanda waxaa ku nool qiyaastii 1,800,000 oo qof Kigali maanta waa astaanta horumarka Afrika magaaladan waxaa lagu amaanaa nadaafadeeda ammaankeeda iyo maamulkeeda hufan waxay noqotay meel ay shirkado iyo maalgashadayaal badani xiiseeyaan dowladda Rwanda waxay higsanaysaa inay Kigali noqoto xarun tiknoolajiyadeed iyo ganacsi oo hormuud u ah bariga Afrika marka la gaaro 2050 kaalinta labaad ee caasimadaha Afrika ugu nolosha wanaagsan waxaa ku jirta Gaborone oo ah caasimadda Botswana waxaa ku nool qiyaastii 300 oo kun oo qof Gaborone waxay caan ku tahay dhaqaalaheeda degan maamul wanaagsan iyo amni buuxa Botswana waxay si wanaagsan uga faa'iideystay dakhliga dheemanka taasoo kor u qaaday adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha magaaladan waxaa la filayaa inay sii ahaato xarun ganacsi oo muhiim ah sanadada soo socda kaalinta koowaad ee caasimadaha ugu nolosha wanaagsan qaaradda Afrika waxaa ku jirta Port Louis oo ah caasimadda Mauritius Port Louis waxaa ku nool qiyaastii 150,000 oo qof halka guud ahaan deegaanka magaalada ku hareeraysan ay ku nool yihiin in ka badan 600 oo kun oo qof Port Louis waa wadnaha dhaqaalaha Mauritius waana xarun maaliyadeed oo muhiim u ah marka loo eego qaaradda Afrika magaaladan waxaa lagu yaqaanaa adeegyo tayo sare leh amni wanaagsan iyo jawi ku habboon ganacsiga iyo maalgashiga Mauritius waxay leedahay himilo ah inay sii xoojiso doorkeeda dhinacyada maaliyadda tiknoolajiyadda iyo hal abuurka marka la gaaro 2050 kuwan waxay ahaayeen shanta caasimadood ee Afrika ugu nolosha wanaagsan liiskan wuxuu ku salaysan yahay isku darka amniga tayada adeegyada bulshada horumarka dhaqaalaha iyo guud ahaan heerka nolosha haddaba adigu caasimadee aad jeclaan lahayd inaad ku noolaato fikirkaaga noogu reeb qaybta faallada haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar fiidiyowgana subscribe ha ka iloobin si aad ula socoto barnaamijyada dambe siina sheer garee oo la wadaag asxaabtaada